gobolkan awdal mas'uuliyiin ka socotay hay'adda dhowrista carruurta ee CCBRS magaceeda loo soo gaabiyo arday waalidiin iyo carruur kala duwan oo baahiyo gaar ah qaba madashan ugu horeen waxaa ka hadashay Marwo Ubax Cali Maxamed oo ah mas'uuliyadda ururkan saase u qaabilsan carruurta baahiyaha gaarka ah qaba waxayna faahfaahisay ujeedada kulankan iyadoo hoosta ka xariiqday inay carruurta curyaamiinta ah ay wax baran karaan isla markaana loo baahan yahay in bulshadu ay iska kaashato sidii carruurta curyaamiinta ah loo geyn lahaa goobaha waxbarashadu ay ka socoto anigu waxaan ka gudoomiyahay ciyaalkan special needs marka ciyaalkan waxaan halkan xafladan aan soo bandhigayaa dawladaha iyo hay'adaha si ay wax ugu qabtaan hadii awood u leh ee kusayso inay wax u qaban karaan ciyaalkan baahiyaasha gaarka ah qaba oo kala duwan baahidoodu oo naaqadoodu qaar saddex ay ka badan yihiin qaar laba ay yihiin marka waxaan rajaynaynaa in markaan ku soo bandhignaa barnaamij hawlahan ku saabsan ciyaalka inta cidii awood u leh inay wax qabato ay wax noo qaban karto sidoo kale Marwo Faa'iiso Sheekh Saciid oo ka socotay hay'adda dhowrista carruurta ee CCBRS magaceeda loo soo gaabiyo oo iyaduna madashan ka hadashay ayaa waxa ay muujisay dareenkeeda kulankan ku aadan shadeenu intii wax cunaysay intii ordaysay hay Soomaaliya xiraaniman halin habartii qadisay intii waad aragtay iskuulada lagula tacaalayaa in kastoo jira carruur fara badan oo dayaca haddana bulsho fara badan oo laga yaabo wax kaliya maqan tahay maskaxdiisa looga faa'iideysan lahaa in wax badan dadka tiri lahaa in guryaha dhexdooda lagu qarinayo oo waalidku ku qarinayo dhaqan baa loo qariyaa caafimaad baa loo qariyaa sumcadda qofku ilmihiisa iska sarreysiin carruurta u qariyaa haddii maanta la yidhahdo carruurta baahida gaarka ah qabtaa wax la siinayaa halkaas soo tuba kala badhboor ma soo dareeri waa xaqiiqo jirta gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Professor Ahmed Cigari Raash oo isna gabagabadii madashan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in carruurta curyaamiinta ah ay wax baran karaan isla markaana loo baahan yahay in bulshadu ay iska kaashato sidii carruurtaasi loo geyn lahaa goobaha waxbarashadu ay ka socoto waxa uuna hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisa waxbarashada ay kaalin muuqata ka ciyaari doonto sidii ay carruurtaasi ula jaanqaadi lahaayeen carruurta dhigooda ah ee goobaha waxbarashada ku sugan walintii waxbarashada yaa wax loo bilaabi karaa waayo halkan ku haynaa dhismihii qalabkii waxbarashada waanu haynaa buugkii waanu haynaa qalinkii waanu haynaa ogaasha macallinkii waanu haynaa ogaasha marka waxaa naga dhiman carruurtii oo la soo joojiya runtii oo sidaa qofkii wax baran karaa loo bilaabo kii caafimaad dee loo geenaya loogu tababaro impact waxa laga sii daayay in qalabka warbaahinta wadateed oo casriyaysan oo daqiiqadii waxa la ogaanayay gaadunka tacaladiisa oo dhan wadateed dad badan oo qofkii mikrofoonka iyo idaacadu tagtay TV-ga la iska arko waliba gaar ahaan channel leela Somali channel ayaa dadka aad u adeegay runtii si special u adeegay oo qofku guriga u taga oo dabeedna u weydiiyay mucaawino ummadda u bandhiga xaaladda qofkaasi bandhiga ee dadka gurmuhu runtii way ka soo jawaabaan qofkii dibadda loo geyn karo ka soo jawaabaan qofkii gudaha wax loo qaban karo ka soo jawaabaan markaa runtii isna mahadnaq gaara u jeedinaa janalka had iyo jeer ummadda ugu adeego bulshada dhibaataysan